إيه ده ورمانيga eedada marka eeday u oranayso maxaa jira ma abaha ba ay qaba maxaa igu soo duufay ani ma soo ila dhashay aabay kuma qabo kuma dhalan xisho haday igu oran eedo waa maxay soo duufin ani ixtiraam leh waay ma duqbaad imo dawriya si fiican iyo kolay hoos iga fiiriya waa yartaa miya maxaa jira dhalinta dhafoorkay ku taala ma waad ii jeedin sidaan u ekaay okay iska yarow bismillaah rahmaan wariya xisho muduga yaraan jecla iska yarow waayee xaaladaada ka war abaayo waa fiican abo maasha Allah qoslaayda abaayo maxaa ku diiday sida hay abaayo xaaladaada ka war gaalkacay iga waran gaalkacay waa lagu fiican yahay okay su'aalan ku weydiina hay mudug wax intaas raadinaa ani hay hal su'aalan ku weydiina adu yaa taa marxamar baa taa ha reehlu bilaay maniin anaga ree qaboobe gaalkacayo qarama ka baxa muxuu uga bixi waay anaaba ka soo dhacay anigoo 15 jira intaan fuula geedkiisa adi ma ka soo dhacbo dam ku iri say ila hadlaysaa wariyaha lillahi wa inna ilayhi raaji'un muxuu uga bixi waay geed qarale laga soo dhacaya ana ka soo dhacay intaan fuula geedkiisa sintaas ba hadda ilaa hadda ay xanuunaysa dhulka dibirta aan ku dhacay darteed qaraab sin ka jibi miya muxuu iiga jabin waay inna lillahi bismillaahir rahmaan wariyaha reexamarku ilan waa dad tacbaana iyo ayaga dhan oo qaraab intaas la intuu soo ka qaraas dhir intuu jeed ad ma fuul miya waliga acuudkiyo geed qaraba la fuula aniga fuula ka soo dhacay oo dhulka inta malaa'ika inta bismillaah sida ugu kala go'ay ilaa ay hadda inta malaa'ika sintaas ba ay xanuunaysaa soo xasuusin awatul umriyo sheekh abdul qaadir jeelaaniyo geed qarank soo dhacmaa tiri waa ka dhacay okay bad ma qabtaan bad maxaan u qabi weyn haye intaan dabaal u galay badan mool dalaq ku irbaan iga soo bixiyay waa lagu soo badbaadiyo gaalkacyo ku taala koonfurta ka martaa ma qabada qabtiin mar badweynta hindiyaanu qabnaa maxaa dhacay hindi waa martaa ha badda cas waa martaa intana badda casn dhinac kale ka martaa tii guudina waa martaa hayaay miya wariyaa reexamar ani adigu isma fahmayna noo kala qaad qawsayni aw adna noo kala qaad safaaradaha may bas qariina iska soo dhacdhaca badda guduud iska dabaasha waa ku dabaalanaynaa qaraha waan ka dhacnay ay raal aan reeb mudug wax ku dirsanaa ani hanu bilaayati ma raal ay ani waa baxay reegeed qarag soo dhacdhaco war heede ay qariina la soo dhacdhaca qaraha iyaga ku dhaamay ordada reexamar iyo hello wallahi abayo ha walaalo waa fiican walaalo alxamdulillah hay oo ku fiicnay maxaa maanta maxaa kula walaal bismillaahir rahmaanir rahiim mid ba iga careysiyo igu yiri halkan wax aan sheegi karin maxaa dhacay maxaa jira wax la sheegi kara ma walaalo maxaa la sheegi karin waxan buu igu yiri eedu igu yiri intuu halka igu yimid anigoo magaalada iska shidisay kala kiciyo ma walaalka ba dhalay xagee walaalkay ka dhal waligeyba markine ninkaada ma dhalay waa nin dhalinyaro magaalada jooga aan ma garanayo ma ninkaada dhalay ninkeyguna ma dhalin ma nin baa qabaa anigu garoob baan ahay soo anigu cad garoob maahay waa ogsaa waa kuwa garoob ba kuwa sidee markii ii tiri laftirkaagu nin baa ku qaba waa pastor eed sufule waa kuwa xuno gabdhaha niyad ka dilo eed adigi baaba nooga daraaye oo quraaradii iga sii jijibiya hadane anu marka dhalaysan ku habeenkii istaa ugu dhalay 2013 bishii saddexaad maars 15 baan dhalanaa ku ina baby aad tahay waa ku ogaanu adiga ba garanay waa maxay ma odagaaga dhalay maxaa oday ii keenaniye hadda ma odaygaadu ku dhali karay moogtahay haduu oday oo guursato wiil yar oo soo dhalay dhalinyarada eed ku dhigi karay moogtahay marka waxaan ku sheegayaa waxa jiro baastriin oo waxa jiro gabdhaha niyad ka dilo eedo ayeeyo oo ku bahdilayo ma garanaysaa waxa uu arkin haduu walaalo nin dambo eedi yira hadaan arka adaan ku aan isto sheeg soo wac hadda kadib ana tilaabo ka qaaday ya baa waan baxay haye inaad waan baxay nasiibka qofta waan haye walaalo nasiibka eedi oo dadana waa